wuxuu ku dhashay buurta cigaal oo 20 kilomitir u jirta magaalada Mooyaale ee dhinaca Itoobiya reerkoodu waxay ahaayeen xoolo dhaqato ayaydiis ayaa soo korisay 1950kii ayuu wuxuu soo galay dalka Kenya wuxuuna ku biiray ciidamadii mustacmarka Ingiriiska ee la oran jiray KRF Kenya Rifle Forces wuxuu ku tababartay magaalada Nyanyuki oo markaasi ciidamadii Ingiriiska xarunta u ahayd taqasuskiisa ciidamadana wuxuu ahaa shiishka ama toogta Xasan Goro Allahu naxariiste 63 markii xorriyadda ay qaadatay Kenya ayuu mar kale ciidamadii Kenya ka goostay wuxuuna aaday dalka Soomaaliya barigaasna wuxuu ku biiray dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonkii NFD ee jabhaddii NFD ee xorriyadda u raadinaysay degmooyinka NFD la isku yiraahdo haatanna ah gobolka waqooyiga bari iyo Mooyaale iyo Marsabit oo dhinac ah wuxuu ahaa abaanduulayaashii duulaanka ka soo qaadi jiray gudaha Soomaaliya ee dalka Kenya dagaalka kula jiray 1974 markii la joojiyay howlgalkii ciidamada NFD lagu xoreynayay Xasan Goro waxa ay dawladii Soomaaliya ee barigaasi u dirtay tababar military oo uu ku soo qaatay waqooyiga Kuuriya iyo Shiinaha mar kale ayaa haddana 75tii dadkii la isku oran jiray midowga Sofiyeeti loo diray Xasan Goro oo uu militariga tababar la xiriira ku soo qaatay markii uu istaagay gobonnimadoonkii NFD iyo jabhaddii NFD Xasan Goro aad ayuu uga niyad jabay wuxuuna ku biiray jabhaddii la oran jiray Soomaali Abo ee iyadana xorriyadda u raadin jirtay gobolada Bali iyo Sidamo ee bariga Itoobiya markii uu dhacay nidaamkii dergiga ee Mingista Haile Mariam xukunkana ay la wareegeen ururadii EPRDF la isku oran jiray Xasan Goro wuxuu noqday shacab caadi ah oo ku dhex nool gobolka Liibaan ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya wuxuuna muddadan dambe ahaa oday si weyn loo ixtiraamo oo si caadi ah ugu nool magaalada Mooyaale ee dhinaca Itoobiya oo si weyn looga xurmeyn jiray sida uu ii sheegay aadan macallin Yuusuf oo hadda ah madaxa amniga ee gobolka Liibaan ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Xasan Goro shalay ayaa lagu aasay magaalada Mooyaale waxaana aaskiisa ka soo qayb galay madax Itoobiya Kenya iyo Soomaaliya ka socday